Ma u huri lahayd addinkaaga si aad u badbaadiso nolosha hooyada? Maanta waxaynu eegaynaa qisada la yaabka leh ee Arjun iyo hooyadiis Vijjayanti. Waa sheeko ku saabsan aargudasho iyo naf-hurnimo ka baxsan caqliga bini'aadamka. Nala soco ilaa dhammaadka si aad u aragto geesinimada Arjun. Vijjayanti waa sarkaalad sare oo booliis ah, taasoo nolosha u hurtay dalkeeda. Laakiin wiilkeeda Arjun wuxuu doortay waddo ka duwan sharciga. In kasta oo hooyadiis ay tahay astaanta sharciga, Arjun wuxuu noqday geesiga danyarta. Tani waxay keentay in hooyada iyo wiilku isku seegaan cadaaladda. Dhinaca kale, dadkii Nawab ayaa qabanaya Batan, waxayna ku tuurayaan eel weyn, eelkaasna wax dhimasho ka ahayn kama jirto. Laakiin Batan wuxuu bilaabayaa inuu dhammaantood si naxariis darro ah u garaaco. Kadib Batan wuxuu dhammaan meydadkooda ku aasayaa eelka dhexdiisa. Laakiin markaas waxaa soo baxaya Arjun. Arjun wuxuu ku leeyahay, intaan joogo waxba kama yeeli kartid warshadan. Arjun wuxuu bilaabayaa inuu Shyam iyo raggoodaba si xun u garaaco. Sannado ka hor Vijjayanti iyo saraakiisheeda waxay la dagaalamayeen dambiile, maalintaasna waxay ahayd dhalashadii Vijjayanti. Arjun sidii caadada u ahayd sannad kasta wuxuu u yimid inuu hooyadiis ugu hambaliyeeyo dhalashada. Dhinaca kale, saraakiishii booliiska waxay qabteen dambiilihii oo xabsiga geliyeen. Vijjayantina Arjun aad ayay u jeclayd. Hadda Vijjayanti waxay rabtay in Arjun isna uu noqdo sarkaal sare oo booliis ah. Sababta Arjun uu u noqday dambiile ma aha mid sahlan. Aabbihiis oo ahaa sarkaal ciidanka badda ah ayaa si qarsoodi ah looga takhalusay. Dadku waxay u haysteen inuu badda ku qarqamay, laakiin Arjun wuxuu ogaaday in Kaali uu dilay. Markii sharcigu ka gaabiyey, isagaa gacantiisa cadaalad ku raadiyey. Xaaskiisa ayaa ugu bushaaraysay warkii uu muddada sugayey, kaas oo ahaa inay uur leedahay. Arjun farxad awgeed ayuu gudaha ka gilgishay, wuxuuna go'aansaday inuu u tago hooyadiis Vijjayanti si uu farxaddaas ula qaybsado. Laakiin intii ay jidka ku jireen, waxaa weerar gaadmo ah ku soo qaaday Iswaami. Arjun isagoo difaacaya naftiisa iyo qoyskiisa, wuxuu cashar lama ilaawaan ah u dhigay Iswaami, isagoo gacanta ugu dhigay sharciga, halkaasna xabsiga loogu taxaabay. Arrintan waxay ka haysay cadho weyn kooxda Batan. Isla markiiba ciidan aad u hubaysan oo ka amar qaata Batan ayaa gudaha u soo galay saldhigga si ay u furtaan Iswaami. Arjun markii uu ogaaday in hooyadiis ay khatar ku jirto oo xabado loola munaasabayo, ayuu sidii libaaxii ugu soo dhex dhacay saldhigga, isagoo mid u dhabeeyey maleeshiyadii Batan. Isagoo weli dhiiggu ka daayo, ayuu Arjun xiriir khadka telefoonka ah la sameeyey Batan. Halkaas ayuu Arjun ku ogaaday qorshaha xun ee Batan uu ku doonayo inuu ku dilo hooyadiis, arrintaas oo ka dhigtay Arjun mid cadho iyo aargudasho la qarxa. Tan waxay noo sheegaysaa saaxiibayaal in Batan uu heer kasta u mari karo carruurtiisa. Sidoo kale, Arjunna wuxuu samayn karaa wax kasta si uu u badbaadiyo nolosha hooyadiis. Hadda waxaa soo baxay Batan oo naxariis daran, iyo Barakash oo ah sarkaal booliis ah oo laaluush qaata. Waxay maleegayaan shirqool halis ah oo ka dhan ah Vijjayanti. Cadowgu waxay isku dayayaan inay isku dhuftaan hooyada iyo wiilka si ay u wada dilaan. Dagaalka ugu dambeeya wuxuu ka dhacayaa gurigooda. Arjun oo silsilada ku xiran ayaa loo hanjabay in hooyadiis iyo xaaskiisa uurka leh la dili doono. Arjun si uu hooyadiis u badbaadiyo wuxuu sameeyey wax la yaab leh. Gacantiisii ayuu seef ku gooyey si uu silsilada uga baxsado, cadowgana u dhammeeyo. Geesinimadaas waxay keentay inuu cadowga dhulka ku daro. Arjun wuxuu badbaadiyey qoyskiisa isagoo gacantiisa u huray cadaaladda dhabta ah iyo sharafta hooyadiis.